socdaalka geeridu waa dhaqan soo jeena oo ay reer Indonesia ay ka dhaxleen awooyaashoodii hore. waa wax iska caadiya markuu naga dhinto qof naga mid inaan meedkiisa kaydino. meedku isma bedelayo wuxuuna kaydsananayaa boqolaal sanadood. ciyaar dhaqameedyo gaar ah ayaa la ciyaarayaa marka meedka la kaydinayo. isma bedelayo jirka qofka dhintay. qof kastaaba waxa uu rumaysan yahay meedkiisa haddii la aaso inay tahay sharaf dhac lagula kacay. biya waxa ay weyday aabaheed iyadoo booskii aabanimana weyday, haddana waa mid markasta aaminsan inuu aabaheed uu la joogo. magaalada Tanah Toraja ee gobolka Sulawesi dalka Indonesia waa magaalada ugu badan ee meydadka lagu kaydiyo. qof kasta oo ka tirsan reerku waa inuu soo salaamo meydka waliba si caadi ah. Dandaro waa 86 jir wuxuu dhintay 2 sanadood ka hor. dhammaan xubnaha qoyskiisuna waxay rumaysan yihiin inuu maqlayo, inuu arki karo, inuu wax la cuni karo. waa dhacdo adag inaad rumaysato dhaqanka reer Dandaro. bal aynu eegno diimaha Islaamka iyo Kristaanku waxa ay ka aaminsan yihiin. labada diimood waxa ay si isku mid ah ay ka aaminsan yihiin in meedka la asturo oo dhulka hoostiisa la geliyo oo aan abidkii qofka halkaasi laga soo saarin. 2 jeer ayaanu maalin kasta siinaa raashinka aabbaha iyo Dandaro. sidoo kale waxaanu siinaa bun iyo sigaar, si fiicanna waanu u daryeelnaa jirkiisa. aabbaha 2 sano ayuu meedkan ahaa. sideed u aragtaa xaaladan uu ku jiro? marmar miyaana nixin. murugadu waa taanu rabno, waayo haddii aanu dheeraynin meedkiisa sidee baanu u soo xasuusanaynaa? waxaanu u dhowrnaa sidii qof naga mid ah oo aan weli naga dhiman. xataa carruurtu waa kuwo si maalinle ah u soo booqday awowgood. intii aanu wadnay socdaalkeenna waxaanu booqannay guri kale oo u yaalla meyd kaydsani. si caadi ayaanu la dhaqanaa meydka. wuxuu ahaa qof aanu wada jecel lahay. qol qurux badan baanu siinay. soo ma aragtid? marwadani ninkeeda waxa ay ku leedahay hamurugoonin hana cadhoonin. magaciisu waa Paulo Sirinda. waxa uu dhintay 12 sanadood ka hor. qof kastoo faamilkiisa ka mid ahayna waa mid si joogto ah u daryeela. dadkani waxa ay rumaysan yihiin haddii qofka dhinta meydkiisa ay aasaan in ay sharaftii u lahaa qofkani ay dhaawacayaan. sanadkiiba 2 jeer ayaa dhammaan meydadka kaydsan si wada jira loo xusaa, iyadoo la samaynayo dabaaldegiyo iyo damaashaadyo gaar u ah meydka. saad la socoto barnaamijyada dambe subscribe garee.